isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta cisbitaalka degmada Berbera iyo xubno ka socday hay'adda ka shaqeysa caafimaadka gobolka saaxil ee Health Unlimited ayaa saaka socdaal kormeer ku soo maray deegaanada hoos yimaada degmada Madheera gaar ahaan xarunta degmadaasi iyo sidoo kale tuulada Dooxa Guban oo iyaduna ka tirsan degmadaasi Madheera waxaana halkaasi soo kormeereen isla markaana ay soo indheeyeen cisbitaalka xarunta Madheera ee Sheekh Abdal oo ay halkaasi soo kormeereen cisbitaalkaasi iyo guud ahaanba sida uu shaqeynayo iyagoo sidoo kale soo indheeyay dadka ku sugan cisbitaalkaasi waxaana mas'uuliyiinta ay kulamo kala duwan ay la yeesheen mas'uuliyiinta caafimaadka ee xarunta degmada Sheekh Abdal oo ay ku xog wareysteen xaaladda guud ee caafimaad iyo waxyaabaha ay bulshadu u baahan tahay waxaana kulankaasi mid lamid ay la qaateen mas'uuliyiinta tuulada Dooxa Guban iyo guddida caafimaadka ee tuuladaasi oo sidoo kale iyaguna ugu xog waramay xaaladda guud ee caafimaad oo ay tilmaameen waqtigan ay meel wanaagsan ay marayso kulamadaasi iyo kormeerkaasi kadib isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Bashiir Diiriye Jama ayaa nooga waramay ujeedada socdaalkan ay maalmihii u dambeysay ay ku marayeen deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil waxaana uu tilmaamay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolku in toddobaadkan ay wadeen socdaal ay ku marayeen deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil isla markaana ay ugu kuurgalayaan xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanadaasi waxaan jeclahay inaanu ka yar warbixino hadafkayga aan u soo baxnay maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha sida caadiga ah waxaan u socnay kormeerkii gobolka ee caafimaadka gobolka lagu kormeeri jiray ee lagu talagalay shaqaalaha lagu kormeero goobtan joognaa waa Abdaal goobo kalena waan soo marnay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inay nala joogaan guddidii caafimaadka gobolka Saaxil oo aan kormeerka si wada jira iyo hay'adda HBA u wada fulinaynay waxaan joognaa goobtii Abdaal oo aanu la kulanay shaqaalihii iyo dhammaan guddidii iyaguna qaabilsanaa degmada Abdaal ee caafimaadka runaantii waxyaabaha la taaban karo ee aanu imika kormeerka ku aragnay waxa kamid ah in goobaha aanu soo kormeernay ay yihiin goobo shaqeynaya oo uu caafimaadka iyo dadka la daryeelaya ay yihiin sidii loogu talagalay shaqo loo wado runaantii Abdaal waa la garanaya taariikhday soo martay waqti badan in badan bay soo martay maanta waxa ilaahay loogu mahadnaqayaa ambalaaskii oo shaqeynaya shaqaalaha caafimaadka oo heegan u ah shaqaalihii caafimaadka oo heegan u ah inay u qabtaan oo u adeegaan bulshadooda waxa kaloo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen agaasimaha cisbitaalka Berbera iyo sidoo kale xubno ku hadlaya afka guddida cisbitaalka Berbera iyo mas'uuliyiinta hay'adda caafimaadka gobolka Saaxil ee HBA oo dhamaantoodba tilmaameen caafimaadka gobolka Saaxil uu meel wanaagsan marayo waqtigan isla markaana loo baahan yahay in la taageero oo lana sii tayeeyo Dr. Abdirahmaan Maxamuud